madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa lagala wareegay ciidamadii amnigiisa sugi lahaa xilli taas ay keentay inuu soo gaabiyo safarkiisa Muqdisho dibna ugu laabanayo Garowe. haddaba maxaa qarsoon oo xalay ka dhacay hotelka Jazeera maxay tahay qalqalka amni ee uu wajahay hogaamiyaha maamulka Puntland. ilo wareediyo ku sugnaa aaga hotel Jazeera ayaa inoo xaqiijiyay in ciidamo ka tirsan ADMIS ama midowga Afrika oo galbinayay wafdiga madaxweynaha Puntland ee ka qayb galay shir ka dhacay hotel Jazeera xalay ayaa markii uu Saciidin hotelka galay dhammaan ciidamadii amnigii sugayay ee ka tirsan midowga Afrika amar ayaa la siiyay waxaana dhammaantood lagu amray inay dib ugu laabtaan xerada xalane. dawladda ayaana dhammaan la wareegtay ciidamadii amnigiisa sugi lahaa iyadoo si cad ugu sheegtay inay ka tagaan goobta maadaama ay joogeen ciidamadaba sugid ah. taasi waxay keentay in Saciidini markii uu shirka soo dhamaaday isaga oo keligii ah oo ay la socdaan staff yar oo kooban in gaari bulletproof ay ka qaataan hotel Jazeera kuna tagaan xeyndaabka xalane. waxaana wararka qaar ay sheegayaanba in Saciidini uu diiday ka bixitaanka Jazeera ilaa inta laga keenayo ciidamadii damaanad qaaday amnigiisa ee ka tirsan midowga Afrika. Saciidini imaanshiisa caasimadda Muqdisho waxa amnigiisa si buuxda u damaanad qaaday xubnihii beesha caalamka ee shirka ku caadinayay dawladda federaalka iyo mucaaradka. hase yeeshee xalay waxaa la qaaday tallaabo u muuqata qorshe si weyn looga soo fakiray oo Saciidini lagu qalqalgelinayo si uu caasimadda uga baxo. xubnaha mucaaradka qaarkood ayaa TV-ga Himilo u xaqiijiyay in madaxweynaha Puntland muddo saacadaha ku xiriirnaa hotelka Jazeera isla markaana uu dalbanayay in dib loo soo celiyo ciidamadii amnigiisa sugayay taas oo keentay hakad badan oo gala in uu aado dhanka iyo xalane. ugu dambeynse markii dawladdu ay diiday in ciidamadan ay aadaan Jazeera ama ay u soo qaadaan Saciidini waxa uu ku qasbanaaday in isagu uu ismidaamiyo oo uu toos u aado xerada xalane taas oo ka dhigan target iyo beegsi ka dhan ah xubnaha mucaaradka Soomaaliya. dawladda federaalka ayaa ciidamo badan soo dhoobtay hareeraha hotelka Jazeera waxaana la baarayaa la xaqiijinayaa lana celinayaa qof walba oo wada wax lid ku ah dawladda federaalka. xitaa kaamirooyinka wariyaasha ayay diideen ciidamada halkaasi jooga in ay gudaha u galaan hotelka Jazeera ilaa wariyaasha markii dambe si dhuumalaysi ah qaybtooda ku galeen hotelkaasi. madaxweynaha Puntland ayaa marka uu wajahay xaaladaasi waxa hadda uu ka baxayaa magaalada Muqdisho iyadoo uu ku laabanayo Garowe. hase yeeshee qorshihiisa waxa uu ahaa Saciidini sida la sheegay sii joogidda caasimadda maalmo dheer si uu qayb uga noqdo ololaha mucaaradka ee ka dhanka dawladda waqtigeeda dhamaaday. waxaana madaxweynaha muddaxileedkiisa u dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud ay u muuqataa in uu mucaaradku si weyn u targeedsanayo oo xeyndaabkii hareeraha degan yihiin uu geeyay ciidamo xad dhaaf ah taas oo qaybtood ay ku tilmaameen inay tahay fal u muuqda caburin siyaasadeed oo karan ah qaanuunka dastuuriga ee dalkan Soomaaliya. madaxweynaha muddaxileedkiisa u dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wajahaya dagaal siyaasadeed oo toos ah xilli waqtigiisa u dhamaaday haddana weli uu ku adkeysanayo hanaan doorasho oo qof iyo cod ah taas oo mucaaradku ay diideen dalbadeenna in la qabto doorasho degdeg ah oo aan ahayn mid madaxweynaha uu hindisayo. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goob fagaaraha xalay markii ugu horeysay si cad uga sheegay in muddaxileedkiisu uu ku egyahay 15 May 2027 isla markaana ay heestaan sanad dheeri ah oo dastuurka iyo qaanuunka dalka uu siiyay sida isaga hadalka uu dhigay. waa markii ugu horeysay oo si fagaaraha madaxweynaha uu qirto inuu sii joogayo talada. hase yeeshee dhanka mucaaradku way diidan yihiin iyagoo markan bilaabay dhaqaaqyo siyaasadeed iyo kulamo ay ugu arrinsanayaan xaaladda taagan firaaqa dastuuriga ee soo kordhay iyo dhammaadka muddaxileedka madaxweyne xasan tallaabooyinka la qaadi doono maadaama madaxweynaha uu diiday in heshiisku kala gaaro mucaaradka nidaamka doorashooyinka dalkan Soomaaliya. la socda Himilo Somali TV wixii warar xoog ku soo kordha nabadgelyo. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socda receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal. internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah. internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah.